madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kuna xasaasi ah oo quraaca saaka la yeelanaya xubnaha wasiirada iyo xildhibaanada labada gole ee ka soo jeeda Soomaaliland ee ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya. fariimo qoraal oo xal loo diray mas'uuliyiinta ayaa lagu sheegay inuu jiro kulan quraaca oo dhex maraya madaxweyne Farmaajo iyaga kaasi oo looga hadlayo kala warqaadasho ku wajahan xaaladda siyaasadeed ee dalka oo ay ugu horeeyaan arrimaha wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo ay ka soo jeedaan. kulankan waxaa hogaaminaya dhanka xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta gobolada waqooyi ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed Qadar. madaxweynaha ayaa la filayaa inuu warbixin ka siiyo shirkii wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland ee toddobaadkii hore uga qayb galay dalka Djibouti iyo arrimo ku saabsan doorashooyinka oo kuraasta gobolada waqooyi lagu dooran doono magaalada Muqdisho, isla markaana fila Soomaaliya ay doonayso inay saameyn weyn ku yeelato xildhibaanada ka imaanaya gobolada waqooyi ee Soomaaliland. maanta ayaa la filayaa in xildhibaanada golaha shacabka ay ka doodaan xeerar uu ka mid yahay xeerka asteenta kuraasta gobolada waqooyi, inkastoo ay jiraan xildhibaano Soomaaliland ka soo jeeda oo aad u dhaliilsan hanaanka loo marayo doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi ka soo jeeda.